wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya mid ka mid ah hay'adaha dawliga ah ee qaabilsan tayeynta daryeelidda iyo la socodka xaaladaha ciidanka qalabka sida ee dawladda Soomaaliya waxyaabaha ugu muhiimsan oo markaas meesha yaalay waxa koow ka ahaa in ciidanka aan tirsaneen sidoo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uu sheegay oo media uu ku sheegay wax ma jirin wax system ah oo systemkii hore maadaama uu burburay oo nidaam ah oo runtii cad oo askariga runtii taliska uu ka tirsan yahay ama qaybta uu ka tirsan yahay ama ururka uu ka tirsan yahay ama guutada uu ka tirsan yahay ama sidoo kale hurunta uu ka tirsan yahay oo adiga aad kula xisaabtami karto meesha ma jirin laba sano iyo laba bil ayaa laga joogaa markii xilka wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya loo magacaabay mudane Xasan Cali Maxamed 26 bil kadib maxaa u qabsoomay wasaaradda gaashaandhigga waxyaabo badan ayaa noo qabsoomay ciidankii aan haday ku sheegay maanta waxaan haysanaa ciidan tirsan oo runtii dhammaan qofka ama askariga biogiisa ama wax la yiraahdo taariikh nololeedkiisa inay ku cad yihiin hadii uu leeyahay next of kin ama familkiisa ama ciyaalkiisa ay systemka ay ku jiraan hadii caafimaadkiisa uu caafimaad leeyahay haduusan caafimaad lahayn ay system ku jiraan hadii uu yahay nin active ah ama qof aan active ahayn micnaha oo shaqo qaban kara ama howlgab ama howlkara labadaba inay noo qoran yihiin waxa kale oo la sameeyay xaqiiqdii in ciidankii biometrigaasi u sahashay in dhaqaalahooda oo shalayti gacan lagu qaaday maalintan imaanayni inuu askariga u dhacdo askariga jooga lawiyacada ama isheegadiga Raskamboni inta qeybaha hadda shaqeynaysa oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee qaybta 21 iyo 43 21 runtii galmudug ah ilaa 43 oo ah Jubbaland iyo qaybtan 60aad oo koonfur galbeed qaybta 7aad oo Hirshabeelle ee dhamaantooda 12 April ciidamada hadda systemkeena ku jira dhamaantooda waxay si toos ah u helaan mushaarkooda one time hal mar ayaa intii loo wada diray ayaa dhamaantooda wada dhacaa taas waxay ahayd guul runtii la gaaray waqtiga dhow waxa kale oo sameeynay galfeel askariga waxaan xasuustaa madaxweynaha sidoo sheegay markaad hortaada yimaada aad tiraadid bax iyo keen galfaalkaaga galfeel ma lahayn hebel ay yaqaan u dhihi jiray aweysan iska seenaa wasiir amar danbaan iska seenaa laakiin maanta qofka jooga qeybahaas hadda aan ku sheegay dhamaantooda systemka hadii numberkiisa la geliyo waxa ku cad guutada uu ka tirsan yahay talis qaybta uu ka tirsan yahay ururku ka tirsan yahay ilaa hurunta uu markaasi uu ka tirsan yahay ayaa systemka ku jirta taasoo fail system oo biometric ah iyo asiga oo galfeel ah oo failkiisa oo qayb kasta failkeeda iyo waxa dhan ay sameeyeen taasna waxyaabaha guulaha la gaaray ay kamid tahay xukuumadda ra'iisul wasaare Khayre oo kaashanaysa daneeyaasha xaaladda Soomaaliya ayaa u istaagtay in mar kale la dhiso ciidan qaran oo Soomaaliya ay yeelato ciidanku waa astaanta qaranka Soomaaliyeed ciidanku waa sharafta dawladnimada ciidanku waa ilaaladii xuduudaha cir dhul iyo bad ee dadka iyo dalka Soomaaliyeed ciidanku waa rajada kaliya ay ummadda Soomaaliyeed leedahay dad iyo dalan ciidan lahayn macnaheedu waxa uu noqonayaa dalan dhul lahayn diiwaangelinta ciidamo hor leh oo dhalinyaro u badan tirakoob saxan oo ciidamada xoogga dalka ah iyo helidda sugnaanta askari walba oo xoogga dalka ah ayaa suurtagelisay in mar kale dalkan uu yeesho cudud ciidan oo la isku haleyn karo qof aan fayl lahayn si loo oran karaa ciidanu ka tirsan yahay ya runtii waxaad gaarteen guulo runtii taariikhi ah yaa gaarteen waana meesha ay ka bilaabanayso
dowladnimadeenna iyo la dagaalanka musuqmaasuqa maxaa yeelay see mushaar loo bixiyaa haddii ciidankii aan la garanayn haddana waa ku mahadsan yihiin saraakiishii nagala qayb gashay iyo askartiiba inay ogolaadaan in la maro sida saxa ah oo askariga dhabta ah iyo meesha uu joogo iyo garaadihiisa in la hayo si aan u ogaano yaa shaqayn kara oo diyaar ah iyo yaa howlgab ah iyo yaa maxaan ku rahdaa curyaan ah oo u baahan in maaragtay la daryeelo marka runtii waa horumar weyn oo la gaaray si loo helo ciidamo qaran oo hela dhammaanba xuquuqaadka ay u baahan yihiin lehna aadaab wadaniyad iyo niyad sami wasaaradda difaaca Soomaaliya waxay baarlamaanka horgeeyeen sharciga xaqsiinta ciidanka sharciyada waxay parallel ku yihiin ay daba socdaan dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxyaabaha runtii xoog aan gelinay waxa kamid ah code of conduct discipline ciidanka inay discipline wixii la baro in human rights and humanitarian law sharciga oo quseeya arrimaha xuquuqda insaanka in oo ishaga la fahansiiyo in aan u sameynay sharciga la yiraahdo xaqsiinta oo loogu talagalay markii biometric-gan iyo wixii ay dhamaadaan dadka parallelka askarta parallelka ama kuwa oo da'da howlgabka in xaqsiin loogu sameeyo waa sharciga xaqsiinta runtii xaqiiqdii waxaan geynay golaha wasiirada waxa kale oo sidoo kale la geeyay golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed oo marsiiyay akhrinta koowaad iyo akhrinta labaad iyo akhrinta saddexaad sidoo kale waxaan u qaadnay aqalka sare oo baarlamaanka asigana sidoo kale akhrin koowaad akhrin labaad akhrin saddexaad soo marsiiyay kadibna golaha shacabka lagu soo celiyay kadibna waxa la geeyay madaxweynaha waxaan rajaynaynaa inuu hadda noo saxiyo markuu saxiyo sharci rasmi ah bulletin official lagu soo saaro in oo ay uu la dhaqan geliyo waxa sidoo kale aan diyaarinay sharciga la yiraahdo difaaca qaranka waa daljirayaal in ka badan waqtiga ay guryahooda ku qaataan ayay ku sugan yihiin goobaha dagaalka kadib dib u habeynta ciidamada xoogga dalka waxaa ka dhashay natiijooyin farxad geliyay qalbiyada shacabka Soomaaliyeed taas oo ka dhalatay markii guulo hor leh ciidamada xoogga dalka ka gaareen al-shabaab oo ah urur ka tirsan al-qaacida oo dunida looga arko halis caalami ah kuwaas oo Soomaaliya ka dagaalamaya muddo ka badan 15 sano waxyaabaha aan gaarnay waxaa ka mid ah in aan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay kaligiis ay maanta meelihii al-shabaab ugu xooga badnaa ay joogaan iska difaacaan ay ka mid yihiin qorshaha badbaadawan aan ugu magac darnay waa Muqdisho security sideeba shacabka Soomaaliyeed ee Muqdisho ku nool ee 3 milyan iyo 500 nabadgeliyadooda loo qayb qaadan kara qorshaha wasaaradda gaashaandhigga dejisay oo ahaa in badbaadawan 5 bridgeska oo El Saleen Sabiidi Caanola Bariire Awdheegle Janaale lagu xiri lahaa runtii qorshihii la dejiyay sidoo ahaa ayaa loo fuliyay oo Janaale aad ogtihiin inay al-shabaab ay u ahayd caasimada ee shabeellooyinka sidaas daraadeeda howsha adag la qabtay waxay suurtagelisay in ciidanka kalsooni badan geliso dhiirinaan geliso ay aaminaan in dalkooda runtii dhibaatada ku habsatay ururadan xaq jirka ay ka sifeen karaan
waxaan runtii aad ugu faraxsanahay inaan maanta ciidamadan xoogga dalka Soomaaliyeed oo quruxda badan ay meeshan ay joogaan. waxaan rajaynayaa dib u dhiska ciidanka xoogga dalka iyo in ay si joogto ah u helaan xuquuqaadkooda waxa ay dhalisay in arday dalka iyo dibadda wax ku baratay ay ku biiraan qaybaha ciidamada qalabka sida. rajada maanta iyo wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya waxa uu sharaxayaa sida dhalinyaradaas loo soo dhaweeyay. qofka wax soo barta ama shakhsiga wax soo barta oo diyaarna u noqda inuu difaaco dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa micnaha wax badan ayuu dalka tari karaa. ani waxaan aaminsanahay xoolahan adag oo la qabtay ayaa waxay keentay in dhalinyaradaasi ay ku dhiiradaan labo iyo qorshihii ahaa in ciidanka xoogga dalka ee lacagtooda la kordhiyo. I believe aniga wax badan ayaan rabay in la kordhiyo waxayna ahayd maalintan imaanayna inay qaataan $100 askari maantana ay qaataan $200 taasoo u dhiganta 100% inuu mushaarkooda kordhay. $30 waxaan ka helnay dib u habeyntii aan sameynay maadaama si qaldan meelo kale ugu dhici jirtay in si toos ah askariga loogu daro mushaarkiisa. $70 ay baarlamaankii iyo xukuumaddii golihii wasiirada markaan u geynay ay nala ogolaadeen in loo kordhiyo ciidamada qalabka sida guud ahaan. marka maadaama ididiile iyo ifafaala oo aad u qiimo badan ay muuqato qofku wax soo bartayna darajadiisa uu ku qaadanayo mushaar intaas ka badan asigoo qarankiisa u adeegayo marka waxay keentay in dhalinyarada ay jeclaadaan in ay ciidankii ku soo biiraan. waxyaabaha looga faa'iideysan karan waxaa ka mid ah qofka aqoonta leh oo ciidankana soo bartay sidii hore aan ugu bilaabay oo maadiga iyo militarigaba ka dhisan waa kaaskan dalka badbaadin kara xaqiiqdii oo hogaanidii iyo systemkii iyo wixii u berita markaa u baahata baylod ku noqon karo maraakiib inuu wada u baahanta wadi karo isha inuu hogaan iyo hodhow dambe teknolojiyadan adduunyada ay horumartay oo maanta aan gaarnay teknolojiyada oo high technology-ga adduunyada oo digital ay tahay. dhalinyaradan wax soo baratay digitalkaas ay ka qayb qaadanayaan in dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. wanaajinta xiriirka dibadda ee wasaaradda gaashaandhigga waa qodob kale oo aad loogu dadaalay waxaana lagu guuleystay in Soomaaliya ay waqtigan iskaashi military la yeelato dawlado badan oo ay ka mid yihiin Ingiriiska, Mareykanka, Turkiga iyo Talyaaniga. Talyaaniga wuxuu ka mid yahay wadamada naga dhaxeeya waxa la yiraahdo bilateral agreement military bilateral waa xiriirka wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda gaashaandhigga Talyaaniga iyo tan wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda Soomaaliyeed. Turkiga oo kale waxaa ka dhaxeeya wasaaradda waxa la yiraahdo bilateral iyadana sidoo kale oo military bilateral agreement naga dhaxeeya oo ay hadda maanta wax nooga tababaraan. wadamada Ingiriiska oo kale waxa naga dhaxeeya xiriir oo dhanka ciidanka ah waa ciidamadan oo qaybta 6aad oo iyaga hadda dhisayo runtii bishaan ay geeyeen 40 baawur xaqiiqdii oo rajaynayno inaan mar dhow aan ku wareejiyo taliyaha qaybta 6aad. EU oo kalena si toos ay noo caawisaa xaqiiqdii wasaaradana ka mid maanta dhismaha hadda socda EU ayaa dhista CC3 wax la yiraahdo command control aan hadda sameynay كاتينكي عيدانكي وحي مقالة وزارة دانا waxaan gelinay solar system oo ii sheeg adiga oo hybrid oo high speed marka waxaan oo dhan hadda waxaan qorsheenaynaa bisha hadda soo socotay in Buliburda aan dhisno sidoo kale xaradii ku taalay oo taliska ah aan ugu talagalnay beledweyne oo kale ayaan rabnaa hadda howl ka wadnaa baydhabo oo kale xaradeeda Ingiriiska ayaa hadda dhisay qaybtii waxaan ugu talagalnay ciidanka ii sheegada lagu maamuli lahaa marka waxa waaye dawladahan aan saaxiibada nahay xaqiiqdii aad bay noo caawiyaan caawimaad oo rasmi ay nasiyaan waxa aan dhihi karaa meel fiican ayaa laga gaaray. waa faraca ciidan mar ahaa
kuwa ugu awoodda badan Afrika oo dhan. Waxaa loo carbiyey in ay ku daydaan aabbayaashood oo Soomaaliya gaarsiiyey in ay noqoto dal madax bannaan lehna awood ciidan. higsigeenna waa guul, higsigeenna waa nabad, higsigeenna waxa waaye inaan la mid noqono dowladaha kale sidoona oo kale ah. waxaan aaminsanahay dalkaani dagaal sokeeye ayaa soo maray, waxaan soo gaarnay xilliga rajada. waxaan leenahay rajo aad iyo aad u weyn, waxaan rajaynaynaa rajadaasi mirdhalkeeda inaan gaarno. waxaad la socotaa dalkaani wuxuu soo maray wajiyo badan, laakiin maanta meeshaan soo gaarnay waa meel aad u wanaagsan. waxyaabahan sugayn waa waxyaabo badan, laakiin higsigeennu oo dalkan oo nabada, dalkan oo ku soo laabta siiqadii hore siduu ahaan jiray awoodiis. wasaaradda gaashaandhigga siday ahaan jirtay, waxaan aaminsanahay wasaaradda gaashaandhigga haddii la dhiso dowladnimadan inay dhismayso. wasaaradda gaashaandhigga iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed hadduu dhismo, that mean in dowladnimadeena ay dib u dhisantay. waxyaabaha aan ka burbursannahay waxaan aaminsanahay inay wasaaradda tan ay tahay. haddii ciidan xoog leh oo la wareegi kara mas-uuliyadda amniga ee dalkan, waxaan helaynaa in dalkani uu helo barwaaqo iyo bashbash, taasoo ula jeedo investment wax la yiraahdo, in maalgashi aan helno. waxyaabaha naga hor istaagan waa amni darada. haddaan amnigeena aan gaarno, waxaan aaminsanahay in dalkani maalgashi imaanayo, in resourcega aan leenahay uu nagu filan yahay, ay higsigeenan uu noqon karo in aan ka fiicnaano dowladaha dariskaana.